الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبر سلامي ولا دمانتي صادرنتين صور بعدا. dadka igu cusub channelkayga magacayga waxaa la yiraahdaa Nimco Kalaan. waan soo dhaweynaya dadkii hore ila joogay iyo daawadayaasheeda qaaliga ahna idinkana aad baan idin salaamayaa. maaragtay waad mahadsantihiin. caawa waxaan ka hadlayaa maaragtay program maxaa la dhahay garoobada ku saabsan. dabcan waad aragteen title-ku waxa uu yahay cajaladii ka horeysay waxaan uga hadlayay gabdhaha xaasaskii waxa ay ka rubaysan yihiin gabdhaha garoobada ah inay yihiin ama qaabka ay ula dhaqmaan. kaasi wuxuu ahaa qaybtii koowaad ayuu ahaa. waa videogankii ka horeeyay. videogan caawa aan duubayana waa qaybtii labaad oo maaragtay waxay ku saabsan yihiin ragga Soomaaliyeed. ragga Soomaaliyeed maxay gabdhaha garoobada ah maxay majority-goodu maxay maaragtay ay ka aaminsan yihiin ama qaabkee ayay ula dhaqmaan bulshada. waaya programkaasi waa caawa kan aan u fadhiyo oon ka hadli doona insha allahu tacaala. wuxuuna kusoo dhammaan doonaa qaybta saddexaad oo maaragtay aan videogan ku xigi doona aan duubi doona insha allah. waaya marka kollayto qofku waxa way fikrad buu leeyahay, qof walba ilaa fikrad buu siiyey. haddaynu Soomaali nahayna dad waxaynu nahay maaragtay dabcan waa la iska warqabaa. maaragtay ama sheeko ayaa laga yaabaa inay waalka ku dhacdo ama gabar saaxiibtaaya ama gabar dariskaaga ah ama aad ku aragtidba maxaa la dhahay community-ga yani sida uu yahay. waa la iska dharagsan yahay akhbaarka iyo warka waa la hayaa. markaan usoo jeesto ragga Soomaaliyeed sida dumarkuba ayaan isku mid u ahayn ay ragga Soomaaliyeedna iyaguna ayaan isku mid u ahayn. oo waxa weeye dadku waa la kala duwan yahay sooma shanta afrood ma wada sinna. majority-ga markaynu qiyaasno rag iyo dumarba dad waa la oran karayaa maaragtay maasha Allah oo macquul ah ayaa maaragtay ku jira. laakiin xabadna waa laga yaabaa meel weerad xabad taqraaran ah oo raggana laga helo dumarkana laga helo. ya waa dadkan adigu iska nooc mina Jabaanka ah. marka ragga Soomaaliyeed maxay ka aaminsan yihiin gabdhaha garoobada ah ama qaabkee ayay ula dhaqmaan. waaya rag waxaad arkaysaa dhaqankii hore haysta oo maaragtay guur wanaagsan oo qurux badan doonaya oo guurku uu daacad ka yahay oo raba gabadhaas garoob ha ahaatee wayba tahay hal caruur ha lahaato ama 5 ha lahaato isku si ula dhaqmaya oo maaragtay diyaar u ah inay waajibkooda iyo xaqooda iyo xuquuqdooda ay gutaan. oo gabdhaha Soomaaliyeed dhaqankeeni sidii yani wayga loo guursan jiray jidkii loo mari jiray يعني nin ismuujiya oo sharaf iyo karaamo leh rag ah ayaa jira. xaqiiqatan way jiraan ragga Soomaaliyeed ma sha Allah. isla markaana rag waxaa jira taqraaran la yiraahdo. taqraaran oo maxaad taqraaran waxa weeye waa ninka maaragtay iska loserka ah taraqlaha ah maaragtay iska reer tabareedka ah. reer tabareed waa la noqon karaa oo qofku maaragtay yani nolosha adduunyada marba waa iska meel laakiin isagu wuxuu choose karayst inuu isaga noolaado noloshaas maaragtay dee lowga ah ayuu jeclayst. oo nin muuqda ma ahan. waa nin madow yaqaana. waa nin kelmad maaragtay xalaalaba aan aqoon oo run ah. waa qof adigu waa nooc iska nooc mina Japan ah weeye. marka ragga taqraaranka ah ee waayahan dambe lagu arkay qurbaha iyo wadankiiba dabcan raggaasina waa noocaas. rag waa labada nooc. marka ninkan taqraaranka ah markuu maqla gabadhaasi waa gabar maaragtay garoob ah waxaaba laga yaabaaba inuu gabadhaasi yasaaba laga yaabaaba ya inuu yaso ayaa laga yaabaa uu yiraahdo
gabadhu markay tiraahdo waryahe waad waxaan doonayaa inaad maaragtay sidii gabdhaha weyga loo soo mari jiray iyo qaabka gabdhaha loo guursan jiray in maaragtay dee aan kaa helo ood iga dhaqantid kan baan doonaya oo kan baan doonaya oo kan baan doonaya sidii gabdhaha dumarka soomaalida lagu yiqiin markay gabadhu tiraa ay wuxuu odhanayaa maya ma adiga oo maxaad ka doonaysaa maxaa aroos lagaaga dhigayaa oo aroos maxaad ka rabtaa qof waxaad tahay garoob ya oo maxaa alaab lagaaga dhigaya ama guri lagugu sharaxaya qof garoobaba tahay ya idinku sheekadaas ka warrama marka kulley walba waxaa la yidhi lax walba shilinka isdhigto ayaa lagu qalaa marka raggaasina way jiraan waana waxaa runtii u badan qurbahan waxaan lagu arkay ta labaad wuxuu sameynayaa taqraaran dee nin sharaf iyo cis iyo karaamo leh maba aha ninka saa u hadlaye gabadh baa laga yaabaa iyadu markaas waxay damacday ma garanayo iska soo xaraysanaysa lahaysa waan iska soo xarood gabadh dawladdu gacanta ku hayso de dabcan waxba ka baylahayn weeye gabadhaasi naag shaqaysato oo iyaduba struggle ku jirta iyo noloshan maaragtay buud kaba maaragtay bira u gashan yihiin naag kulley saas odhan mayso waa naagahan dabcan gabdhahan waxa weeyaan dawladdu gacanta ku hayso cuntada iyo wax walba dee isku dul saaranta yani kurba ma hayso nina way iska rabtaa marka way iska soo xaraysanaysaa soo gabadhahaysaa marka ninkii saas ahaa ilaa walba meesha sharaf iyo karaamo iyo cisi iyo waxba dee ma uusan samayn soo maha wuu iska soo xarooday sidii ina yaroo dib jirahoo dee jidka laga soo qaatay barrito markay noloshii runta ahayd timaado oo ma aragtay gabadhii ay walacdo ama ma aragtay gabadhii ay xanuunsato ama ma aragtay wax soo kordhaan kulle adduun baa lagu noolyahay waxbay soo kordhayaan madaxaa la isla gelayaa waxay dhahaysaa dee adigaa nin adiga ay qabee dee maxaa kugu dhacay soo soco haye ninkii wuu yaabayaa marka la ismari waayo de waxay dhahaysaa boorsadaada qaado walaalo goodbye ya ilan awal meesha waxba uma sooma boorsidiisku tartiib u qaadanaya u baxayaa yaa saa isku galay saa dee adaa isku galay sooma taqraarano adaa saa isku galay waaya marka labadaas weeyaan ragga soomaaliyeed dabcan markaas sharafta iyo waxay ku jirtaa cisiga iyo karaamada waxay ku jirtaa inaad gabadha sidii loo guursan jiray aada u guursatid waayo adigu ma jecelid adigu walaasha in la xumeeyo ma jecelid hooyada in la xumeeyo ma jecelid habarta eedada inaabtida inadeerta in la xumeeyo ama lagu ciyaaro ma jecelid sooma nin jecel ma jiro ha ka yaabin marka sida adigu baadan u jeclayn gabadhani waa gabar soomaaliyeed waa gabar walaasha reeraan dhalay si wanaagsan inaad ula dhaqantid wixii duruuf ah gabadhu ma guursan karaysaan inaan waxba haysan haa way guursan karaysaa waa haddii iyadu doonayso nin hadduu yahay dun leh oo ma aragtay ay u aragto nin berito ma aragtay wax ku kordhin karaya ama ay wax la qaybsan karayso hadday aragto haa gabadhu way ku guursan karaysaa qasab maaha in aroos iyo hawlo iyo ma aragtay qarash iyo waxaa la galo ya laakiin maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa ninkii isaga ahaa inuu isgarto uu dee gabadhii uu berita dhaqdo waayo isagaa mas-uuliyad qaaday soo maha dumarku mas-uuliyad ma qaadaan ninka ragga isagaa mas-uul qaaday isagaa laga rabaa reerkiisa inuu biisho ama gabadhu ha shaqaysato waa isku fillaato ama yan isku fillaan labadaba adigaa nin raga adigaa lagaa doonayaa berita gabadhii markay walacdo ay xanuunsato haye maxaad samayn ya marka sharaftii cisigu waxay ku jirtaa ninku inuu sitaa qaabka uu u dhaqmo hadhowta gabadhii way ku sharfaysaa oo way ku cisaynaysaa oo ma aragtay nin waxay ku arkaysaa mas-uul ah nin meel kasoo saaray oo wax ku kordhiyay ayay ku arkaysaa sidii dhaqankeena lagu yiqiinay marka meesha waxaa kasoo baxaya nolol qurux badan oo maasha allah ah oo wanaagsan oo loo riyaaqo ya man garat waaye taa marka aan ka gudbo marka waxaan siinayaa advice ragga soomaaliyeed ayaan advice siinayaa ama taqraaran ahow
ama ahow raggan maasha allahda ee maaragtay mas-uulka ah labadaba kii aad tahay gabadha kulay dumarku waxuma doontaan dumarku waxuma raadsadaan ragga ma bursadaan ragga ma baryaan ma yidhahdaan warna guursado qasab nagu guursada ninku isaga ayaa wax doona oo wax raadiya iyagaa meelaha galgala taasina wax dee natural oo caadi ah marka in ragoo labada nooc kii aad tahayba haddii aad guursanaysid gabar garoob ah ninkii wax qayaali ah iyo doonaya iska gabadhan iska lugo iyo يعني gabadhan interest ku raadsa iyo oo meel u cadahay meel ka madooba leeyahay oo dana gaar ah wata inaadan gabadh islaameed iyo gabadh reer aadan lugoyn oo halkaaga isku ekaatid waayo gabadhan ama nin baa ka soo dhintay ama guur baa ka soo xumaaday taqraaran iyo ma aragtay iyo nolol jiid ah iyo nolol malaayacni ah xaqiiqatan gabdhaha Soomaalida diyaar ma ahan gabadh diyaar u ah gabar walba in la dhaqdo ninku u wanaagsanaado ayay jecesha marka advice-ka aan siinaya waxa weeyaan si ma aragtay aan la isugu lugoyn si barito aan madaxa la isku la galin si ma aragtay is afgaran waa uusan barito u soo bixin gabadhi waxay u joogta garoobi waa guur weeyaan da intay doonto ha la ekaato caruur intay doonto ha haysato gabadhi waxay u joogto waa guur gabadh madax bannaan hadda aragtid dabcan waxay u joogto waa guur yanin marka advice-kan oo siinaya waxay tahay ragow gabadha markaad guursanaysaan garoobka ah bal iska ogow oo ma aragtay bal lifestyle-ka ay ku nooshahay wax ka ogow ya taas maxay kuu sababaysaa taas maxaad yacni ku helaysaa faa'iido weyn bay taasi aad ku helaysaa gabadhaas waxaa kuu soo baxaysa laba qaab ayay garoobadu uga nool yihiin North America labada qaab waxa weeyaan qaabka koowaad gabadhi waa gabar garoob ah oo caruur yar haysata ma aragtay guri dawlad oo free ah iska degan lacag ma aragtay dawladdu lacagahan caydee la magac leh la siiyo cuntana la siiyo gabadhi waa taas oo leen qabowba ku jirtaa ma aragtay kurba ma hayso oo waa laga yaabaa inay nin iska soo xaraysato wayna dhacdaa gabadhi waa taas gabadha kale garoobka ah nooca labaad waa gabar shaqaysata waa gabar professional oo wax baratay waa gabar shaadkeedu ma aragtay uu adeehay weeye oo biilasheeda baxsata kireeda baxsata biilasheeda dhan baxsata nolosheeda dhan ma aragtay ilaahay ka sokow nolosheeda soo saarata oo ma aragtay noloshan lagu nool yahay qurbaha la xarbiyayso iyadoo xarbi ku jirta weeye marka gabadha noocaas ah ee xarbiga ku jirta ee iyadoo waxeedii soo saaranaysa dabcan inta qaraarna ma doonayso diyaarna ma ahan xaasha kulillah ka yaabin wallahi kat ya marka markay saa gabadhaadu ogaatay gabar saas inay tahay waxaa kuu soo baxaysa gabadhaasi nin lamid ah ama nin ka heer sarreeya inay doonayso soo ma ya marka size-kaaga hadday gabadhaasi tahay kuu cuntamayso sheekadeedu aad gabadhaas ay kula muuqato gabadhaad isku size tihiin nin isaguo maasha allah haddaad tahay gabadha waad isku soo baxaysaan maasha allah nolol qurux badan ayaa idinka soo baxaysa meesha oo hadhow dee isaas garan waa ama imanayo iyo biilka maxaad u bixin weyday iyo maxaad kanayo maxaa madaxa la islama gelayo barito marka advice-kan idin soo jeedinayo waa saas weeyaan ninkii taqraarana oo dee nolol iska maaragtay doonaya iska malaayacniyahoo iska lugooyo ahoo iska ku meel gaar ana dee gabadhii kuu diyaarka ahee maaragtay ku dhahaysa sidii dib jir camal isagaa soo xaraysanaysa dee taas hayse kaa xaraysato ya barito markaas afgaran weydaan oo gabadhii ay uur yeelato oo walacdo ay xanuunsato ama wax kale soo kordhaana dee markay barito ku tiraado war maad iscadaysidoo aad wax samaysidna awalba dee naf maadan lahayne dee bacdaada markay boorsada banaanka kugu tuurto dee adaa is yeelay soo ma ya markaas waxaa wanaagsan qofku size ma aragtay kabahaad xirato size ayna qaadatid ayaa wanaagsan size kaa hooseeya haddaad qaadatid oo kaa yar waa dhibaato
size ka weyn hadoo qaadatana waa dhibaato adigoo 7 ama 8 ah marka aad 8 ama 9 gashatid dee waa dhibaato sooma ya marka si la isku afgarto si maaragtay qoysas badan oo maaragtay muslim oo maaragtay Soomaali ah loo helo si is afgaran waagu iyo maaragtay guurkan maaragtay malayacniga ah iska burburaya si maaragtay looga baxo oo qoysas qurux badan loo noqdo in rago iska baro gabadha garobka guursanayso bal baro gabadha waxay u joogto kulli waa guur un sooma waaye inta markaan laga baxo programka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa maxaa la dhahayay intaan ku kulmi doono videogan ka xigi doona waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlana markasta qofku yani ma soo fariisan karo YouTube video inaad soo duubtid xoogaa waxay kugu qaadanaysaa hawl badan iyo inaad ku talagashid iyo maaragtay yani easy ma ahan marka badi waxaad waad igu soo qoraya waxaad igala soo xiriiraan maaragtay Instagramka insha Allah halkaas ayaa badi aan maaragtay aan waxyaalo soo dhigdhigaa oo badi maaragtay aad igala soo xiriiri karaysaan marka insha Allah taala waxaan idin rajeynayaa khayr iyo baraare